السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي يوتيوب channel كيغا كسو دواذا أبسود كلو عنتا هدادن ولي سبسكرايب دهين بليز سبسكرايب ده شير ده أصحابت هذا اللي شير كلا هدي أجعلاتي عنتو إنك أنسو قلي أدكهشي هدي وحقلا سجشن إيه هيسيد وربتدينا يوتيوب كيكو عرفتنا هوس كومنتيغا يوغو سوقر أصحابتي إذا قبل هيغا قاليغا ما أنتو waxaan idin la sheer gareynaya sida loo sameeyo bakhlaafa Soomaalida badankood waa garanayna waa umaleynayna waa macmacaan asalkiisa ka soo jeedo wadanka Turkiga aan umaleynaa Greek meelahaas Carabta wadamada badankood waa macmacaan yar aad u macaan laga cuno meelahaas ay traditional u leeyihiin oo aad u macaan oo hadaa martay haysatid gurigaaga maalmaalina isaga tuuratid maxaan ku sheekayay aad ugu wanaagsan marka waxyaalaha u baahanta xoogaa wax yar uu adag yahay hadii wax ka qaloocdaanin mana saas u adka laakiin ina raacdid stepska ayaa fiican marka waxyaalaha u baahan tahay hadii aartid ina bakhlafa subsatid waxa weeye burka waxa soo gadanaysaa isagoo oo saas dad way sameystaan guriga waa ku sameysan kartaa but anaga isagoo waxaan helaa diyaarsan oo bacdaas ku jira oo saa u dheero kala baxsan oo ready fitsan marka kaasaan isticmaalayaa waa kasoo gadan kartaa hadaa joogto meel dukaamada Carabta oo kuugu dhow way hayaanin dukaanka soo Carab leedahay waa ka helaysaa burku waa kaas oo saa u dhaadheer oo ceerin ah oo la fidiyay laakiin halkana waxaan ku haystaa walnut hadii aadan garanaynin Soomaali hadaa joogto meelaha qaar hadaa joogto aadan garanaynin wuxuu yahay walnutska waxa la dhahaa bahalkaas walnutska waxa la dhahaa midhahaas yar warqadaas ku jira warqada nooc ku imaada magaciisa waa kaas laakiin walnuts baa la dhahaa waa miro yar la cuno waxa kale oo u baahan tahay waxaanito oo la dhahay isagana pistachios waa miro kale oo yar isaguna oo bakhlafaha lagu daro uu udgoonaysiyaa uu fiican yahay isagana waa kaasa waa miraha yar isagana waa la cunaa hadaadan garanaynin magaciisa waa kaasa meel laga helan hadaadan jooginin ama aad taqaano aadan magaciisa garanaynin oo waxa loo isticmaalo aadan garanaynin waa la iska cunaa oo soo u macaan yahay dhanaan yar buu leeyahay waa kaasa kan waxaan isticmaalay laba baakadood walnutska oo ka 227 gram ah bahalkan igu jira marka waa miro yar oo kuskuusan waa shiidaysaa wax yar saaidna uma shiidaysid oo kama dhigaysid wax buda ah mashiinka waxa dharar ku siinaysaa marka uu noqdo saas camal wax yar oo miro ah oo xogaana shiidan xogaana kuskus ku jiro ayaa ka deynaysaa intaas inaan wada isticmaalin baa laga yaabaa hadii wax iga soo haraan waa arkayaa bad waa ku shubayaa ilaa intay ka deeqdo kana waxa loogu talagalay wax badan uma baahnid wax yar aad qiyaastaada ah inuu wax yar carfiya loogu talagalay pistachios-ka marka wax yar baa isaga baahan tahay isaguna qolof buu leeyahay qolofta ka diiraysa bas waa shiidaysaa isagana mashiinka ku shiidaysaa waa diyaarsan qolofta la ka diiraysa mashiinka ku shiidaysaa waxa kale oo u baahan tahay koob adiga half wax yar ka koreeya oo koobka cabiraada ah oo butter ama subag hadaadan butter joogin meesha aad joogto laga helin butter meel kasta uu yaala laakiin dadin waa subag adiga la fariisiyo oo aad butterku marka subag baad u baahan tahay marka hadda burkayga uu dheeryahay soo ma jeedid bahalkaas inaan ku sameeyaan rabaa walnutska sixinkan yar dhalada ah marka adigay kugu xiranta sixinka aad ku suubinaysid hadaa ku suubinaysid mid ka fidsan waxa laga yaabaa inaad wada isticmaashid bahalkan dhan oo dheer badkayga aniga uu yar yahay kan isticmaalayo because wax badan uma baahna hadar aniga kaliya sameysanayo family-gayga marka ma badnin wax badan uma baahni marka waa jaraya maqaskayga soo ma jeedo wax yar sixinkan ku cabiraya dan waa jaraya aan in sixinka laga qiyaasa ayaan ku u sameynaya marka ila socda asxaabteyda burkayga marka waa kana saas isugu dhadhagan yahay waa leather waa layer yar oo qafiif ah oo saa isugu jira marka waa goynayaa layerkan saa u saaraya meesha kana fakar uu qalala dhaqso marka goysid isla markaba waa inaad dabooshid hadaa wax yar banaan ku dayso uu ka qalalay marka burku waa soo sidaas jidsan layerkiisa isugu degan leh
waxaan ku cabirayaa saxinka marka hadda. waa kana asxaabta waan jaray burkaygii bahalkaygaan la egeysiiyey. hadda waxaan sameynayaa walnutska ayaan ku darayaa. haddana pistachios-ka dusha uga yaacinayaa. marka waxaa sameyn kartaa layers ilaa 3-4 intaa rabto. aniga hadda 3 layers baan ka dhigaa. burkii kale aan dusha kasii saaraya. markaan dusha kasii saaro haddana intaan oo kale baan dusha uga sii darayaa. markaan dusha uga sii daro haddana mid kale aan sii saarayaa. 3 tabaqaan ka suubinayaa sidaas u sameysan. waa kana mid kale aan dusha kasii saaray. haddana sidoo kale aan suubinayaa. aan dusha uga darayaa walnut-kaygii. ilaa inta aan 3 dabaq ka sameynayo. waa kana asxaabta 3 dabaq waa suubiyey. marka hadda waxaan rabaa inaan jarjaro dhaadheer. intaan u jarjaro baa waxaan u jarjarayaa 3 gees. markaan 3 gees u jarjaro ayaan batarkayga dusha uga darayaa insha Allah. waa kana asxaabtayda anigoo jarjaray haddana waxaan ku darsanayaa batarkaygii. batarka marka aday kugu xiran tahay. dad baa waxay jira hadba layer intay saaraaniin batarka mariya oo haddana mid kala saara oo mariya, mid kala dusha ka saara oo mariya. laakiin aniga waxaan ka jeclahay oo ka fudud ka eesisan sirta sidaan ugow. taa batarka hal mar kululeyso dusha uga dar instead of intaa maanta dhan qaadi lahayd mid dusha ka saari lahayd uu bahalkana kaa googo ilaha kaa rafaadi lahaa. hal mar dusha saa ugaga dar. tan ovenka gali ilaa 40 minutes markuu soo casaado oo uu noqdo goldish ka soo saar. waa kana saliid iyo dhinacyada batarkii dhinacyada dhan ka galay. wax yar daqiiqad markuu saa ugu dago waxaad gelinaysaa ovenka 40 minutes. markaas waad intusayaa ka bacdi resultiga insha Allah. stay tuned. u sameynayaa hadda baqlafayga wili wixii ugu jira hoos ovenka. waxaan u sameynayaa syrupkii. waa 2 koob oo biyo ah iyo 1 koob oo sokor ah. noocaas koobkaas labadiisoo biyo ah iyo sokor ayaan isku karinayaa. markuu karo ilaa 30 daqiiqo markuu xoogaa si soo jiijiido baad ka qaadaysaa. hadhow markuu baqlafahaaga diyaar yahay ayaa dusha uga daraysaa insha Allah. marka hadda waxaan sugayaa intuu kasoo karayo. sokorta wax yar ay isjiidaysa saa-in ayay kaaga adkaanin. wax yar marka isjiida ka qaad. assalaamu calaykum asxaabtayda. waa kana baqlafahaygii isagoo ready ah. waa ka wax yar bislaaday. wax yar brown saa-id ha ka dhigin inuu dhaa ka noqdo ma fiicna. wax yar soo goldsha. haddana waxaan ku darayaa sokortaydii aan kariyey oo sirupka aan uga dhigayay. saas ku soo baxay maasha Allah. soo kulul ayaan ku daray sirupka. marka waxa suubinaysaa wax yar daqiiqado markuu kuleelka saaid ka bo'o waxaad gelinaysaa fridge-ka 6 hours. markaasay waa diyaar inaad cuntid asxaabtaada siisid familkaaga wax allaala qofka u samaysay. maasha Allah. marka haddaa ka hesheen subscribe youtube-kayga dhaha, share ii dhaha, ka bixiyo comment. maasha Allah. waa mahadsantihiin asxaabta.